wararka ka imaanaya golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in doorashadii xilka madaxweynaha Soomaaliya ee halka ka socotay Teriya Saaka ay haatan soo dhamaatay. waxaa jagada jamhuuriyadda u sarreysa ku loolamaya madaxweynaha xilka haya Aadan Cabdulla Cismaan iyo ra'iisul wasaarihiisii hore Cabdirashiid Cali Sharmaake. waxay ahayd doorasho la isku daalay oo dhowr wareeg qaadatay iyadoo idaacadduna idin qabanqaabisay tabin toos ah oo 3 saacadood socda. wareegii saddexaad ee doorashada waxaa ku soo baxay Cabdirashiid Cali Sharmaake oo helay 73 cod. marka hadii sidii uu isagu yiri baan annagu waxaan raali ku ahay nidaamkaas. Aadan Cabdulla Cismaan oo dalkan hogaaminayay wax ku dhow 7 sano ayaa helay oo ku hadhay 50 cod. ra'iiska jamhuuriyadda oo loo doortay hadda baarlamaanka uu doortay si wanaagsan baa loo doortay sidii xaq u ahaa baa loo doortay. markii doorashadu soo idlaatayna waxaa isqacan qaaday labadii loolamay ee kala lib qaaday iyadoo taasina diila wacan u noqotay yoolka jamhuuriyaddan 7 jirka ah. dhinaca kalena hogaamiyaha hoyga loo dhan yahay ee golaha shacabka Sheekh Mukhtaar ayaa muujiyay dareenkiisa hanaankii doorashada. barlamaanka gudihiisii doorashadii ka dhacday waa iraala gelisay. halka warkaasi aad ka maqlaysaan waa Radio Muqdisho oo aad ka maqashaan mowjada 9 mitrban. imikana waxaan doonayaa 2-3 su'aalood aan isleenahay way jeceliin dadku inay maqlaan inaan idin weydiino. ra'iiskii hore jamhuuriyadda ayaan imika u jeedinaya su'aasha hore. sayid ra'iis doorashadan maanta dhacday sidii ay u dhacday ma ku raali gelisay? ra'iiska jamhuuriyadda oo loo doortay hadda baarlamaanka uu doortay si wanaagsan baa loo doortay sidii xaq u ahaa baa loo doortay. aniguna tahniyaan uga celiyay waliba waxaan ugu duceeyay inuu ceebtiisa asturo inaan mustacid u ahay waqti walba mustaqbalka inaan gacan siiyaa iyo aan la tariyo mar aan markuu iga baahdo. mudan Cabdirashiid Cali Sharmaake xil weyn oo maanta dadka Soomaaliyeed oo dhan laga saaray ayaanu markhaati ka ahayn baarlamaanka gudihiisa markii doorashadu ay ka dhacday. guusha aad maanta heshay dadku ay maanta ku dhiibeen xilkii sidii ay mudan Aadan Cabdulla Cismaan hore ugu dhiibeen ma mid aad filaysay ba mise waa mid maanta ku gabatay? waxay ila tahay inaan gool iyo gool aan laga hadli karin. waxa aan laga hadli karaa waxa nidaamkaas hadda ra'iiska Aadan Cabdulla Sharmaake oo dimuqraasiyada ah oo noo masaabaxaya in la isbedelo. marka hadii sidii uu isagu yiri baan annagu waxaan raali ku ahay nidaamkaas kulligoona dhanna ay waajib nagu tahay inaan dhowrno aan gaarka ka hayno. waxaan imkana aan jeclayn su'aal qura inaan weydiiyo madaxdii baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaalida Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen. Sheekh Mukhtaar ma ku raali gelisay sidii maanta doorashadii ay baarlamaanka gudihiisa uga dhacday? barlamaanka gudihiisii doorashadii ka dhacday waa iraala gelisay si xaq ah yaa u dhacday wax shaki iyo waswaas iyo su'u dhanni oo keenana awalba waa ka dadaalnay waan ka dhoornay. waxaan leeyahay si wanaagsan oo dimuqraadi ah nidaam iyo deganaan iyo ku dhacay waan iraala gelisay. sayid ra'iis mudan Aadan Cabdulla Cismaan maxaa dadkii maanta ku wadaci lahayd adiga oo 6 sanadood ama 7 sanadood ba imika mas'uuliyadda ay adiga xilka oo dusha ka saaran? wadanka wixii gaara waan wada gaarahayaa waajib bayna ugu tahay inaan jeclaano wixii u wanaagsan oo dhan. marka abidkay waan u ducayn jiray intaan meeshan joogay ka horba haddana ducadii inuu Ilaahay khayr dheefiyo oo wanaag uu la kulmo oo wixii ka maqan uu helo oo uu haminayo asaguna shar la aado iyaan ugu ducaynaya.